بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدين والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مدحونا مرتين لو يهي قلبي أحمد غرغار صاحب بدر إذا كلا ولا سعودية مرتين هو إسايا مدحونياشا كونفور قلبي بنتلان يهير شبال مدحونا كحيانك قلبي gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dhammaan reer galmudug baarlamaan iyo wasiire iyo shacabba iyo inta kale ee martida ah ee la socotay madaxweynayaasha madaxda xildhibaanada ka socda labada aqal ee dowladda federaalka ah bulshada rayidka ah iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo madaxweyne axmed qoorqoor iyo maamulkiisa iyo ku-xigeenadiisa iyo reer galmudug sida aada iyo aada xushmadda iyo ixtiraamka u lahayd ee u soo dhaweeyeen wufuuddii u timid iyo nooca qabanqaabada shirkan oo aan isleeyahay iyadoo lalahaa war galmudug sida ay saaxiibaday sheegayeen waqtiga aanu qabannay oo la yidhi 7dii bisha 8 aan shirka qabanno madaxweynuhuna uu safar markaa ku jiray ma qabsoomi karaan iyo ma iman karaan ay u qaateen inay waqtigaas qaabtaan iyo qof kastoo imanayo waftiyada ka mid ahay waxa uu filayay waxaan ahayn ee uu la soo kulmay waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo aan idhaahdana galmudug maanta waxay ku taagan tahay waddo fiican ee dadnimo hore ku jirtay ay la soo wada baxeen maantana waxay ka muuqataa dhuusamareeb iyo reer galmudug soo dhaweynta marka laga soo taga haddana sida ay u diyaarsan yihiin iyo dowladnimada ay raadinayaan iyo qabanqaabada ay isugu wada yimaadeen ma koobi karo laakiin mar labaad iyo mar saddexaad baan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsantihi intaa marka laga soo tago shirkaani muhiimadda uu lahaa waxaa ka hadlay saaxiibka martida loo yahay iyadoo aan filayo in mar walba yuusuf garaadna uu halkiisa dhaan wada ku darsanayay inuu yahay shir maanta qof walba uu soo fiirinayo waxaa laga filayaana uu yahay wax ay keentay xaaladda lagu jiraay inay sababtay filitaanka shirkan waxaa laga filayaay mid waqtiga ku xigan inuu yahay taariikhda ay soomaaliya soo martay isma weydiinayno marxaladahay soo martay ee kala duwanaa laakiin waxaa hadda inoogu muhiimsan burburkii kadib soomaaliya inay qaaday tallaabooyin horey loo qaadayo oo dowladnimada lagu soo uruurinayo laga soo bilaabo carta indagaasi doorashadii 2012 muqdisho 2016 muqdisho marka lagu daro intii jabuuti isku darkii faraha badnaa intaasoo dhan waxay tusaysay soomaalidu ididiilo iyo amaal muujinaysay sida ay soomaalidu ugu baahan tahay bal inay ka guurto dhibaatadii iyo caqabadihii la filayey oo nooc dowladnimo ay u guuraani inay ahayd midda marxaladaha keenaysay oo qof kastoo siyaasi oo soomaaliya oo damac siyaasadeed ku jiro uu ka fakerayo alleelehe hebel baa qaatay hadduu qaatay u daa afarta sanaan isdiyaarinayaa waxaa lagu gaadhay inta badan ee ku dhacaysana inay tahay wadatashi isla ogolaansho iyo dadku inay markaa waxay isla ogyihiin ay ku meel marayaan ay gaadhaan waxaa hubaal ah oo meel looga wareega aan lahayn guddiga doorashooyinka ee maanta jira markii la dhisayey iyo markii ka horreysayba waxaa laga hadlayay hal qof iyo hal cod in la gaadho waa hamiga qofka soomaaliyeed oo qof waliba ku fakerayo doorasho noocaasa inay dhacdo haddana mar walba waxaa waaqaca runta sheegayey wadciga lagu jiro iyo xaaladda waddankeenu uu ku jiro oo u baahan inta taa la gaadhayo wax badanoo hore inay qabsoomaan inay mar walba caqabadaha ahayd looma fadhiisanayo marka oo lama odhanayo waan gaadhi weyney sidan aan yeelna haddana waxay noqonaysay lafba sidii lagu waxayn karaa loo xagtaa sidii lagu badbaadin karayo ama see xeegana loo xagtaa ilkana ku nabadgalaano
مرة بهدنا إسبدلكي يدمعي يا ناشي إلى سعته إلى تهمد بين المدن الصومالية أساس كونها لما كل يوم يحيى طوانكي مركي لقاها اللي وحقات وليس كالله ساري إلى دعوة دورة شهالقة في هالعظة وذلك ناشنال ليدرز فورمكي يتلاوينك مقابل يوحي للسبيني هدنا ويسعون كرويدي oo waqtiga lagu jira wadanka iyo xaaladii adkeed waxay keentay inay taasi socon weydo waxaan rajaynayaa markaa ama maanta shirkan muhiimadda iyo u sii keentay waxay ahayd arrinta doorashooyinka soo socda ee 2021 hadda dhacaya oo dadku ay in badan soo hadal qaadeen oo qof walba markaa ta'wiilka uu doono uu siinayo taas macnaheedu waxay ku soo ururaysaa shirkan asal uu yahay in la wada tashado dowlad goboleedyadu waa qaab dhismeed ka tirsan systemka federaalka Soomaaliya xaq u leh inay tashadaan oo wax badan oo masiirka wadanka iyo iyaga gaarka oo ka tashadaan waxa kale oo weynisa dowladda federaalka mas'uuliyiintooda iyo dowlad goboleedyada laftirkooda talada ka dhaxaysa ee u baahan mararka qaarkood qaraaraadka siyaasiga la gaarayay inay noqdaan mid laga wada tashado la isu yimaado la isla qaato meesha ay la isla gaari kartaa dadka Soomaaliyeed marka waayeel waxa la hortiisa caana loogu barxaa haddii reerku caana yareeyaan ay gaari waayaan oo la yiraahdo ha lagu daro biyaha lagu daro qofka waayeelka uu garanaya caanahan wax lagu daray laakiin qofka ilmaha yari inay cad yihiin buu arkaa waxa laga yaabaa inuunan aad u sii garanin marka qofka waayeelka isagoo arka yaa lagu darayaa si uu ogaado in baraxii ku jiro dadku markaa shayga muhiimkii waxay tahay waxa ay qaadayaan iyo tallaabada ay qaadayaan haddii barax lagu darayo iyo haddii sidooda lagu bixinayo inay noqoto mid u wada muuqata oo wada arkaan oo markaas aan keeni karin tuun iyo istuuri min aan abuuri karin waxaan rajaynayaa shirkan muhiimadiisu inay tahay inay ka soo baxaan wax rasmi ah oo doorashooyinka iyo siyaasadda iyo wax walba iyo wax dowlad goboleedyada ka dhaxeeya intaba saameyn ku yeelan doona malaha iyaga dowlad goboleedyadu go'aanka gaarista arrimo badan oo wadanka u yaala laakiin waxay leeyihiin la tashi iyo inay talada iyaga iyo dowladda federaalka mas'uuliyiintooda ay ka dhaxayso goonina ayna u ahayn ayna doonaynin in iyagu shaqo ayna iyagu lahayn inay qabtaan ay doonayaan inta iyagu xaqa u leeyihiin inay ku darsadaan taladooda taasina ay wadanka oo dhan horumar iyo guul gaarsiin karayso waxaa u baahan maanta culaysadana saaran wadanku inuu hore uga gudbo marxaladaha kolba lagu jiro waxaan u baahannahay waxyaalo badan baa inoo yaalay oo bilowgii dowladdan haddana laga hadlayay maantana taala dastuurku uu ka mid yahay dhamaystirkiisa ay ka mid tahay la dagaalanka argagixisada in la fuliyo heshiisyadii hore loo soo gaaray London Conference Muqdisho baydhaba iyo qorshihii amniga qaranka waxaasoo dhani marka ay timaado inuu dhici waayo kulanka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedyada laftirkooda inay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan waxa markaa hor yaalla waxaa lumaya oo baadayo kala fogaanaya wixii la rabay in la qabto ee la rabay inay waqtiyadaas qabsoomaan ama la iska weydiiyo waxaa nasiib darro noqonaysa heshiisyo badan oo hore loo soo gaaray fulintooda inaan la isweydiinin oo aan la odhanin war waxa halkaasay marayeen xaggee inay marayeen maxaa ka qabsoomay maxay sababtu ay tahay waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka wada shaqayso kulligeed wadankani maanta midnimada iyo gacanta la isqabsado isku duubnidu galmudug baa tusaale idinku filan galmudug yaa tusaale idinku filan madaxweynaha senatarada iyo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo kuwa maamulkiisaba intay gacmaha isqabsadeen wareegga ay sameeyeen iyo maanta halkay shalay ka bilaabeen iyo maanta isku duubnida maanta ku shalay wax sheeganaya iyo mid kaleba maanta reer galmudug halkay isla gaareen aan kulligeen gacmaha isqabsanno isku duubnaano ninka dowladda federaalka joogay maanta wuxuu mudan yahay in lagu ixtiraamo shaqada uu hayo isaguna uu garto cidda talada leh iyo waxa ka dhaxeeya ka maanta banaanka ka joogaana uu garto maanta ninka mas'uuliyadda federaalka joogay xilka saaran iyo culayska uu ogaado isaguna
berri hadduu kursigaas tago say ugu sahlanaato inuu shaqadaa lala qabto inuu isaguna isku dayo qofka walaalkiiya markaa shaqada ku jira inuu wax la qabto oo uu la saxo oo uu gacanta la isku duubto ma aha ta federaalka keliya idanta istaydyada oo ay ahayd maamulada ilaa heer council iyo saddexda leebal ee dowladnimo in loo dhowaado oo mid heer councilkii iyo degmooyinkii iyo tii dhexe ee stateka iyo dowladdii dhexe sare ee waddankuu lahaa inay intooda noqdaan wax isku xidhan oo ay tahay waxa inuu keenay federaalkan iyo culayskan inaan hadda dowladnimadeena dib u soo abuurno dagaalkii sukeeye iyo burburkii iyo kala tegistii bal in intii isqaadan karta iyo sida dastuurka u soo qorayba sidaa loo socdo aada iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa reer galmudug mar labaad iyo mar saddexaad waxaana rajaynayaa saaxiibaday inuuna shirkaan noqonin kii ugu dambeeyey ee shirar badan aan yeelanno la isku xidhnaado la wada shaqeeyo waxa ka soo baxayana ay noqoto shirkani gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ku saabsan inaan wax cad oo aan iska weydiino annaga iyo dowladda federaalka iyo cidda naga dhexaysaba talada naga dhexayn karta la isweydiiyo oo la isla qaato waxaan aada iyo aada u soo dhoweynayaa dadaal kasta oo dadka isu wadi karaya oo amniga looga wada shaqayn karayo oo qof kasta oo siyaasi oo maanta aada uga fakerayo ama ha noqdeen madaxda xukuumadda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqdeen ama madasha xisbiyada qaran iyo axsaabta kale iyo qof kasta oo caaqil oo siyaasi ha noqdeene qof waliba inuu ka fakero oo ka shaqeeyo isku haynta waddankan xasiloonidiisa sida aan intii ta'wiil aan jirin uu u dhaco dhibaato waddankan uga dhici lahayd qof waliba inta la gudboon inuu ka shaqeeyo sida ugu habboon ee loo gaari karayo waxaan rajaynayaan ilaahayna ka baryaa shirkaani inuu dhali doono kuwo kale oo ku xiga oo ka fiican oo iyaguna kulli ay isla soo wada saaraan kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba wax maanta dadku ay ku qancayaan oo u muuqata oo aragti siyaasadeed keenaysa oo walaaca iyo tuhunka dadka ku jiraay ay uga baxaan reer galmudug guul baan idiin rajaynayaa gacmaha saysataan wada waxaan aada uga warqabaa reer galmudug waa deeqsiyo horta hadda sooriyada iyo geela la uruurinayo iyo xoolaha la keenayo waxaan u malay inaan diyaaradaha ku qaadan doono oo ay ka badan doonto intaan joogno waxaan isticmaali lahayn bal wixii lagu qaadi lahaana aan kasii fakaro aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu